waa maalin cad meeshanna waa duurka waxa meesha kasoo baxaya waa yeey dhanka kale waxaa imanaya meesha gawaadhi waxaa kasoo degaya rag hubaysan oo wata qoryo waxay qoryahan ku ugaadhsanayaan yeeyda waxa kasoo horbaxay yeey cadhaysan waxaana qori ku dhuftay mid ka mid ah iyaga ninkan waxaa lagu magacaabaa Stephen waxa uu ka warwarayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo Vicky waxa ay u soo guureen magaalada banaankeeda halkaas oo ay guri ka degeen waxaanay kasoo fogaadeen buuqa magaalada waxa uu kala furfurayaa alaabtii waxa uu ku arkayaa sawirka xaaskiisa oo waa hore geeriyootay waana warwarayaa waxa uu tagayaa xagga sare waxaana uu tagayaa gabadhiisa Vicky waxaana uu sheegayaa inuu soo booqanayo adeerkeed subaxa waxa soo booqday adeerkeed waana salaamaysaa habeenka marka la gaaro Vicky waxay ku jiiftaa dhabta adeerkeed halkan waxa waqti ku wada qaadanaya Stephen iyo Thierry habeenkii waxa baxaya Thierry Stephen subaxii waxa uu hagaajinayaa gaarigii inantiisana waxa uu soo gadayaa alaab waxa uu la soo fadhiistay gabadhiisa waxa uu ka jabiyay moobilka waxa uu rabaa inay raacdo laakiin uma ay jawaabin waa uu iska baxay isaga oo banaanka taagan oo kaba hagaajisanaya ayay inantiisii u timi iyadoo go'aankeedii bedeshay way israaceen dhankaas iyo banaanka waxay dhex socdaan duurka waxa ay qaadanayaan nasasho Stephen waxa uu jecel yahay inuu mar walba la hadlo gabadhiisa laakiin iyada uma jawaabto waxay sii wadanayaan socodkooda waxay arkayaan inay soo lumeen waxay arkayaan oo kale guri ku dhex yaala duurka way tegayaan waxa soo dhaweynaya oday waxaanu u keenayaa biyo ay cabaan biyihii waxa uu kala siinayaa labadooda iyaguna biyihii way cabayaan Vicky waxay aragtay fardo waxaana u dhaqaaqday dhankaas iyo fardaha agtooda waxa joogay ay ku jira foosto kala go'an waxayna u tagtay ayganna waxa iska leh odaygan Vicky waxay weydiinaysaa ayga magaciisa waxaanu ku odhanayaa Mystery aygan waxa uu uga dhigay hadiyad wayna soo qaadatay aygii waxay ku soo riday shandad waxaanu u soo waday dhankaas iyo gurigooda waxaa dhinacan ka soo eegaya Mystery hooyadii waxaan la siiyay inanta maaha ay waayay habeenkii waxa ay yimaadeen gurigooda waxayna wadataa Mystery way soo saartay Stephen ma oga in ay wadatay waxay ku riday kartoon guriguna waa cidla subaxdii marka la gaaro ay iskuulka u baxayso waxa ay ku sii qarinaysaa Mystery armaajada halkaas oo aabaheed ay kaga qarinayso waxaana u soo baxeen dhankaas iyo iskuulka iyadii aabaheedna way isa soo raaceen Stephen inantiisa waxa uu ku oranayaa ninkan naag maray waa dilaa inantiisii baa la hadlaysa waa uu qaadan waayayaa intuu istaago ayaa inantiisii laabta gelinaya waxaanu ku oranayaa mar walba i weydii hadalkan oo igu soo celceli maadaama aanay weliga la hadlin oo ay maanta la hadashay waxa uu imanaya maamulaha iskuulka Master Dermot waxaanu isbarayaa gabadha iyo aabaheed waxa ay gelaysaa galaaska isaguna waxa uu soo baxaya banaanka isagoo faraxsan waxa uu la kulmayaa gabadh caruurta iskuulka keentay oo lagu magacaabo Anna way isbaranayaan halkaas ay ku kala tegayaan Mystery waxa uu ka soo baxayaa meeshii waxaanu ku ciyaarayaa alaabta Vicky oo qolka dhex taalay oo dhan waxa uu maqlayaa gaariga Stephen waxaanu gelayaa meeshiisii gaarigii ayaa soo istaagay waxaana la socda aabihii iyo inantiisa Stephen waxa soo qaraacaya walaalkii waxaanu u sheegayaa inay Vicky hadashay halkaas ku wada sheekaysanayaan waxa uu soo ururinayaa alaabtii Vicky oo wuxuu rabaa inuu dhaqo Vicky waxa uu ku arkayaa in aygii iyadoo wadataa waxaanay fadhiyaan guriga banaankiisa umuu diidina waa uu ogolaaday waxaanay ku tiri aygu waxa uu rabaa faamil uu la noolaado waxay aabaheed ka codsatay inuu la noolaado uu faamilka la noqdo aabaheedna kamuu diidina waa uu yeelay way isfahmeen iyadiyo Mystery habeenkii way seexdeen aabaheedna waxa uu sameynayaa qolka ay aydu gasho waxaana fadhiya halkan Mystery waxay u soo baxeen dhanka iskuulka waxaana soo kaxaysay Mystery si ay ardayda u tusto markii la gaaray xiisada waxay kaga sii tagtay aygii aabaheedna waxa uu la kulmay gabadhii maalintii hore waxaanay ku tiri gabadhu aygan halku ka soo farcamay hubi halkii ayaa ay ku kala tegeen isaga iyo gabadhii waxaanu soo baxay dhankaas iyo gurigii waxa uu arkayaa dad badan oo ka mudaharaadaya yeey kuwaas oo ay ka cunaan maalin walba xoolahood maalintii xigtay waxa waqti isla qaadanaya Stephen iyo Thierry waxaana waqti la qaadanayaan gabadhooda waxay ka sheekaysanayaan Mystery Stephen waxa uu suuqa kula kulmayaa Anna waxaana ku oranaysaa Anna
eygani maaha eygii caadiga ahaye ee waa yey ee waxaad geysaa goobta lagu xanaaneeyo si loo daaweeyo. Waana uu ka diidayaa. Halkan waxaa waqti ku wada qaadanayaa Stephen iyo gabadhiisa. Eygii waxa uu ciyayaa sida yeyda, waxaa maqlaya yeydii oo dhan. Stephen waxa uu arkayaa gabadhiisii. Meesha waxaa yimi nin gaari wata, waxaanuu soo galay guriga Stephen. Isla markiiba dib ayaa u noqday. Vicky iyo Stephen iyo inantiisii waxay waqti ku qaadanayaan duurka. Waxay arkayaan yeydii mar walba dusha ka daawan jirtay iyaga. Yeydana waxa weeyaan Mystery hooyadii. Waxa ay go'aansadeen Stephen iyo Vicky inay qaadaan yeyga oo ay soo hubiyaan waxa uu yahay. Waxay geeyeen goobtii caafimaadka. Waxaa loo sheegay inuu yahay yey. Anna waxay ka codsatay in uu sii daayaan. Stephenna waa uu ka diiday maadaama ay gabadhiisu aad u jeceshahay eyga. Waa uuna la qabsaday iyaga noloshooda. Stephen waxa uu dhisay qol weyn eygii. Qolkii ayaa ay ku soo xidheen. Waxa uu yimi ninkii maalintii hore. Waxa uu ku yidhi maad aragteen yey meelahan jooga? Waxa uu ugu jawaabay maya. Inantiisa ayaa uu u sii wadaa iskuulka. Ninkii waxa ku yidhi dad aragtaan iisoo sheega. Isna waxa uu ku yidhi haye. Waxaana u kaxeeyay iskuulkii inantiisa. Waxay joogaan xafladda iskuulka. Gurigoodii waxaa yimi 2 nin. Waxaanay galeen qolkii eyga ku xidhnaa. Waxaanay fureen qolkii. Waxayna ku arkeen eygii. Waxay waceen Anna. Gurigii waxaa yimi Stephen iyo gabadhiisii iyo askar. Eygiina waxaa laga xidhay qoorta maadaama ay askartu ku yidhaahdeen waa la xidhayaa eyga. Waxaa ka daba carartay inantii Stephen. Stephenna waa uu soo qabtay. Askartiina eygii halkii ayaa ay ku xidhay. Wayna kaxaysteen. Stephen iyo inantiisii eygii ayay sii eegayaan. Waxayna u carartay dhankaas iyo gurigii. Eygiina sidaas ayaa u qaylinayaa maadaama laga kaxeeyay familkii. Stephen waxa uu ku soo kacayaa inantiisa oohinteeda. Waxa uu is odhanayaa aamusii way ay diidaysaa. Habeenkiina sidaas kumay seex. Maalintii xigtay waxaa jira baraf. Waxa uu yimi odaygii. Waxaanuu hadiyad u keenay inanta. Inantiina ma ay qadin. Waxa ay tagtay dhankaas iyo geedka. Waxa ay ku ciyaaraysaa geedka. Waxayna daawanaysaa meelaha barafka ah. Dadkii xaafaduna way shirayaan. Waxayna go'aan ku gaadheen inuu yeygu yahay halis. Halkii ayay iyaduna ku xanaaqday. Aabaheedna waxa uu sheegay inuu halis yahay. Annana sidaas oo kale. Waxa ay soo raaceen gaadhigii. Aabaheedna waxa uu sheegayaa in uu yeyga lala noolaan karo, laakiin dadkani ay iyagu ka baqayaan oo aanay wax cabsiyi jirin. Vicky waxa ay joogtay iskuulka. Macallinkii ayay ka codsatay inay suuliga gasho. Waa ayna soo baxsatay. Albaabka waxaa ku sugayay eygii. Wayna la kulantay. Waxayna u sheegtay inay u xiistay. Waxay isku raaceen dhankaas iyo duurka. Halkaas oo ay waqti ku qaadanayeen. Waxaana gurigii ugu yimi aabaheed gabadhii. Waxay ku tiri yeygu uu soo baxsaday maad aragtay. Stephenna waxaa laga soo wacay iskuulkii oo lagu yidhi inantaadii ma joogta meeday. Waxa uu cararay dhankaas iyo duurka si uu inantiisii u daydayo. Stephen waxa uu arkay Mystery. Waanuu daba kacay. Waxaanuu u geynayaa gabadhiisa oo meel jiifta. Gabadhiisa waxa ku dhacay baraf. Waxaanuu u soo waday dhankaas iyo guriga maadaamuu baraf ku dhacay. Inantiisa waxa uu weydiiyey waxa ku dhacay. Waxay inantiisa ugu jawaabtay aabba waxaan rabaa dadkan ugaadhsanaya Mystery inaan ka badbaadiyo. Isaguna saas ayuu go'aan ku gaadhay. Waana wada heshiiyeen. Maalintii xigtay Mystery waxa ugaadhsanaya nin. Waxaanuu ku dhuftay xabad. Inantii yaraydna waxa uu ku dhufan gaadhay xabadda. Waxay ka dul ooyeysaa eygii. Waxa uu yimi aabaheed. Aabaheedna waxa uu dhaqaaqay dhankaas iyo ninkii. Ninkii ayaa uu feer la dhacay. Mystery waxaa loola cararay meesha caafimaadka. Halkiina ayaa lagu badbaadiyey. Maalintii xigtay akhbaar ayaa ay u wada Anna Stephen. Waxaana u sheegtay in uu Mystery ku noolaan karo xaafadda. Halkii ayay saddexdooduba ku wada kulmeen. Bahalkiina waxay u keentay inantii yarayd. Inantii yaraydna waxay u sheegtay inay jeceshahay bahalka. Filimkiina halkaas ayaa ku dhammaaday.